بسم الله الرحمن الرحيم بلد حاوي waxaa ka dhacay inta aan ku dul istaagin iyo xaaladeedu waxay ku dambeyn doonto waxa soo baxday waraaqdan awood intee la eg bay xambaarsan tahay maxaa maalmahan dowladda Soomaaliya aamusiyay maxaa waraaqdan maanta awood intee la eg maxaa ka imaan kara hanjabaadan qodobadaas oo dhan muuqaalka ku dul istaagay laakiin waxa maanta god dheer ku dhacday rajo dadka reer Puntland 10 sano iyadoo qaanaysa loo soo waray oo ah in ninkan maalin madaxweyne Soomaaliya uu doonayo maalin uu xamar ka noqon doono madaxweyne inuu ninkan raadinayo kursiga Soomaaliya in ay ka hortaagan yihiin hawiye in cadow badan oo hawiye uu leeyahay waa falsafad noocaas ah muddadii hadda u dambeysay la abuuray 5 sano hadda u dambeysay tii marka rajadii alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta god ku dhacday markuu ninkii qaadic dariiqnimo soo dana imaaraad fulay qaadic dariiqnimo kale uu aadana sameeyay maanta rajadaas reer Puntland dadka isaga ugu samreeyeen god bay ku dhacday hadda horta Saciid Cabdullaahi Dini reer Puntland waa arkayaan waraaqada darteed iyo badeednimada darteed baa horta la isku arkaya iyada halka ay waraaqdan tabar nooceey leedahay waraaqdan horta waxay xambaarsan tahay dhambaal iyo weerar ay qaadi rabto dowladda Turkiga oo ay markabkooda ku soo furan doonto markabkaasna xoog baa lagu soo furanaya kow horta hantida saaran waa hanti Soomaaliyeed marka hore idiin sheegay wada hadal baa iyaga iyo Turkiga u socday maanta soo jawaab kama ay dhigin iyaguna haddii noo xalaaloobay bal xoolo Turki leedahay deeq uu Turki bixiyo dowladda Turkiga oo shacab Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya loogu deeqay bal aan aragno ida ku xalaalaysa Turkigu waa weeraraya Turkigu marka muxuu Soomaaliya ka qabtaa horta Turkiga yaa wax bilaay laga dhigay waxa isbedelay kursiga baa isbedelay Cabdullaahi Farmaajo maanta xafiiska fadhiyo wiil daarooda waa tii xamar ay ka yeerisay ariga yuhuud maanta xasan sheekhan iyo sheekh shariifkan iyo shacabka gobolka banaadir waa tii la caburinayay oo la ma mudaaraadi kartaan waa tii la madaxa kor uma qaadi kartaan gorgor iyo haramcad iyo farxaan qoroole iyo raggii saraakiishii hawiye iyo dhalinyaradii hawiye iyo kulli waxay ka soo baxeen kuliyadda Turkiga oo maanta hantideeda halka ku bigaaraysan tahay Turkiga marka isagu mar walba danaha Soomaaliya ka shaqeeya marka wadaadal baa u socday soo daaci waa sii deeniya iyo saana yeelaya iyo waxbaan yeelaya iyo ninkan imaaraat waxaan ay ma shaqeeyo soo danaha imaaraadka fulaya buu afcad ku sheegay inuu markabka sii deenay maxaa dhacay marka Turkigu isagoo taaka duulaya buu yiri dowladda Soomaaliya soo saar waraaq xigaana xoog shacabka Soomaaliyeed soo anu maadeeyo ana shacabka Soomaaliyeed hantida xoog doonay oo ana hantida صدق أهانكم بحيبي أو شعبك الصومالي إذا ما صدق القلبين أنا أود دقيق إذا كنا ناقل بس صار أنا وين رسال ساعة على صوص إذا فرتني سديد ساعة صوص عتا واحد مغلي دونا تا مركب كي واحد دقيق أنا مركب كي نمكي واك حيستن ما مغلي دونتا عد بوراق أنا حنبار سنت دولد محا أمسية مركب وما أنت إيه كسب بيه دولد وحا أمسية أول تركيا waxa wada hadal u socday iyo imlaax wada hadalkiina imaaraad baa meesha soo galay oo ninkii waa isku dhijiyay hantida ummadda Soomaaliyeed Turkigu iyadoo diidaysa dal shisheeye inay ku xadgudubtay dowladda Soomaaliya la yiri adigu amarka bixi waa talaaba ka qaadanaa wixii shaqana aniga nooda shaqadu ma in markabka kaliya la soo furanaya waa may socdaalka inuu khatar ka yahay kow socdaali karin hantidiisa in la xanimayo oo samaystay oo shacabka dhiiga shacabka Puntland oo ka samaystay waxa uu macdan iyo dahab Puntland ka dhacay hadda marka isaga waraaqdan wuxuu u haystaa waraaqdu waagi aniga iga soo saaray oo Yurub jooga oo beenta ahayd oo 10 sano xariga ahayd Yacquub Siyaad waa Daacish waa xag jir weyn waa nin aad khaniisinta u nacabo gaadan nacabo oo go'aan adago 10 sano ku xakuma ama maadaama uu aamuseen 10 sano ku xukumay aniga la gareebay 10 sano ninka maanta arabtaan inuu Soomaaliya madaxweyne ka noqdo oo isbedelka dalkan ka jira ama Afrika ka dhacay uu la jaan qaado uu fahmo duruufaha bilaadanka ku xeeran wiilkaas waa wiil reer Biciidiyana waxa la dhahaa Axmed Cali baa la dhahaa wasiir maaha xildhibaan maaha wax kale maaha kaasoo wasiir iyo xildhibaan waa taksiile wiil بأنه كحنا شيء مدحويني بوتنا دي لان ما احترسوا محمود سليمان اسمه محمود باويل تكسيله الربيعيه كحنا شيء وليبا حتى الله في مصر قال نكان ما الله صدح لي ساعه ضبا هل مربوح سو قرال رق بو مدحويني دباي بوتنا كغا دانس وراقد markuu dani soo qoro waraaqaas qoro u qaba marka
taasoo kale buu moodaya ama aan yacniga aan waxba ku salaysnayn ana nin reer xuseen isna waa bahadhul bahantay haddaan isna waa hubaysay anna waa hubaysna muxuu iga qaadi karaa dhow isaga caddayn ka rabaa caddee meeshaan daacish ku noqday caddee ii caddee dadka kaalay u caddee anaa isaga daalac u haysta marka walaaqda isagu dowladnimada uu ixtiraamay tan puntland buusan ixtiraamin saciid cabdullaahi deni taas soomaaliya uma socon be buusan ixtiraamin waa ninkii madaxweynaha soomaaliya u kacoo diiday awalna shalayna weyterka uu ahaa oo kuraasta kabaa ka dabowday ka cuso in adeerkii u soo dilay kursiga jegada ra-iisul wasaaraha ka rabay oo ka tuugayey marka ninka waa la garanaya cawo alla wuxuu ka shaqeeyo marka wax badan oo dhaylsanayo hadday socdaal tahay hadday awood kala tahay hadday burcadbadnimo tahay ninkan birat caadiya wey shaabadaasna maanta meel kasta kaga dhaca marka hadduu soo qoraya shalay maxayd anaga turkiga naga dhex baxa maanta soo qoraya hadduu noo xalaaloobay haddaad adigu haysan lahayd oo ninnimadaada ku haysan lahayd caqligaa kuusoo noqon lahaa laakiin gacantaada nin kale wax ku cunaya imaaraat la dhaho taas marka caqli xumadaas qofkii daarooda kula qabana waa yeelkeed oo ummadda soomaaliyeed ka hor keeni kartid kolleyba anigu yacquub siyaada maaha garaadka ummadda soomaaliyeed waa diiday anigu oo sharciga adigu aa ku tumatayna aniga iiga sheekeen maysid qabyaaladda aad maxamed cabdullaahi farmaajo ku dishay oo in adeerkaayo xataa dhiigga ku dhaqnan waaye anna iikaa dhaqnaan maayo waxay dadka wada sharciya dowladnimada waa lagu wada joogi karaa dowladnimada iyo nidaamka dowliga ah waxba kama taqaanid halka iska dhig talada oo isa casi haddii kale waxaa ku dambaynaysaa waa kuu sheegayaa adoo buuraha boosaaso ku dhuumaalaysanay adoo shacabka puntland intay hadda 9% waa caqliyaystaan intay kugu soo jeestaan iyagoo madax kaa garaacaya adigoo haddana iyagii ashalay lahayd waa idin ilaalinaya adoo soo weeraraya shalay kii boosaas kumaysa baraarugin kii garow kumay baraarugin kii galkacyo kumay baraarugin kii dhahar kumay baraarugin kii hadda aad ku qaadaysay sool iyo sanaa kumay baraarugin kan maanta aad cero ku ag fadhido waa ku baraarugsan yihin maanta inaad cero la fadhido dana cisaaq iyo soomaali inay kala go'do aad ka shaqaynaysid bahar dhulbaantaa taha yaa soomaali ka saari karta adoo bahar dhulbaantaa ii sheeg waa ku maamahaya islaan habar jeclaa baa waxay jecleed sheekooyinka libaax ninkii marka islaantaa siil ka raba waa inuu libaax uga sheekeeya si kale ma jirto marka haddii kale waxba keeli maysid maalinta dambe baa nin u yimi wuxuu yidhi naahiblay maxay ku dhacay miyaa ogtahay hee maxaa kugu dhacay geed naa libaax baa eryaday markaasaan u gooyey markaasaan waran ku tuuray markaasaan geed ka fuulay markaasuu libaaxii hoos igu sugay buu yidhi intaan geedkii kasoo degayay satiri haye waa khalkhalsanta islaantii haye dhareer baa ka socda haye markaasuu gooshi baa timi gooshi baa saa geedkii sabiisha ugu xoqatay markaas haye markaasuu anna lug baan saa ugu raaciyey buu markaasaan lugta ku xantaxantay haye markaa ku xantaxantaysan markaas saasa u kala dhigtay waa gooshi waa libaaxii naagta waa ka geliyey markii halkaa maraysay baa lala hadlay leeyahay heblaayey satirnaga aamusa kii libaaxa wasay baa hadlaya hadda aamus baa ku leena annagoo beeshaada daarood ah annaga dadka kaa qabsanan kii aad weyterka u ahaydo wasiirka aad u ahaydo tolkaa aad lahayd maamul ma noqon karaan xasan sheekh maxamuud baa hadlaya isagaa maamul saddexaad oo daarooda dhisaya isaga ummadda adiga kaa qabanay axmedoobe isagaa ka qabanaya dadka waana madaxweyne soomaaliya wey haddaad shaabada wiila rabtana marka horeuba ahaayo allah ka dhigay hawiye sida adigaba ilaahay bahar dhulbahanta kaaga dhigay ba isagana ilaahay wacaysla uga dhigay annagoo naqaan badi codadkayo ku siisay annagoo garanayno ninkan nin cusub ma ahayn marka aqli xumadaas waa waxa ummadda soomaaliyeed kaa horkeenay burcadbadeednimo maanta inaad marayso ayaan darab laakiin waxa ilaahay mahadiso lagu farxo in rajadii xamar dadka ay u soo wari jirtay ee god ku dhacday weliba adigu gacantaada ugu riday ada aniga eersanayn waayo waxaan dul istaagayaa maxaa ka dhacay baled xaawo horta hawiyana ma degana ugaadeenna ma degana reerka degan waa garanaysaa reer la dhaho mareexaan baa degan hadda mareexaan muxuu doonaya mareexaan hadda wuxuu doonayaa jubbaland cusub buu muddo ku tahmayay in la dhiso tan cadaalad darru ka tabanaya waa labo waana ay tahay tan cadaalad darro aabbaheed iyo hooyada haddaa maqashaa jubbaland hadda jirto wey marka jubbalandan hadda jirto cadaalad darra aabbaheed iyo hooyada tahay khasab in laga takhalluso oo la dumiyo wey jubbaland cusub oo mareexaankii shalay hartiga lagu diri jiray la dhihi jiray uu kaa argoosanaya
oo mareexaankii la dhihi jiray ogaadeen hadduu ogaadeen mareexaan yimaado wada ka argoosanaya oo mareexaan soomaalida kale iyo hawiyaha iyo sharanshuurka iyo balaayada waxaasuu wataayo dowladnimo soomaaliya qawi u dhisaya dowladnimadii qawiga oo mareexaan ku faanaya baa laga rabaa jubbaland ay ka hirgasho adiisha jana waa fiican yahay magaalada baraxa uu joogaa xerada UK buu degan yahay kuwa badan oo shalay inuu magaalada uga baxo oo yiraahdo bal u daa gaadma ay ahayd dagaalkan xalay garbihiisa mareexaan badan waa soo buuxiya oo la fahmay bahasha inta hadda maqan oo banaanka qoryaha la taagan oo falsafada axmedoobe ku shaqeynaysa iyagana tashkiilin kala ku socota mareexaan weeye wiilkan dhiiggiisi biyo maaha cid kale kama dhalan laakiin qiyamka uu doonayo in la fahansiiyo unbaa muhiima dowladnimo maanta jubbaland ah oo mareexaan madaxweyne u yahay taasaa la doonaya meeshaan haddii ogaadan qabtana annaga askale oo daarooda haddii harti uu qabtana anagoo daaro hadduu mareexaan qabtana laakiin waxaa la raadinayay fursadda la haysta in laga faa'iidaysto waayo jaanisku mar kasta kuma soo maro qofka bini'aadanka jaanis baa hadda ku haysanaa inaan dowladnimo helno shaabadii baana loo hayaa kharashkii lagu dhisi lahaa baana laga garab taagan yahay taas axmedoobena waa taa shalay ka dacwoonayde wey haddaada marka munaafiq ahayn qofka mu'minka god laba jeer lagama wada qaniyo waxaa leeyahay tolkii mareexaanow islaayo idin dhihi maayo axmedoobena shalaa idiin soo raacayo khayr hadduu leeyahay kama harayn waayo wax kale kuma kaamin garayo harti mareexaan ha iska ilaaliyo harti mareexaan ha iska ilaaliyo harti mareexaan ha iska ilaaliyo sixir aan ahayn ma gado ogaadeen mareexaan ha iska ilaaliyo kala dilka ummadaas waa la soo shaqeeyay axmedoobe dadka maanta ku cusub meel aar ka kacay baa la yidhi atoor fariisay ma maqashay meel aar ka kacay atoor fariisay axmedoobe iyo dani kuwa maanta la shaqeeya inay aragti gaaban yihiin 100% waa qabaa haddii askari yihiin haddii shacab yihiin haddii maxaa dhacay dheh shalay markaan labadooda qabyaalada ku wadnay xagee ku maqleed haddii qabyaalada adiga wax ku tarayso anuu yacquub siyaada aan kablaxnimo labada ku waday oo nimankaa sadaha oo mareexaanka iska fogeynay wallahi wariya igada nimankaan aniga duulaan nugu yihi falsafada noocaas raqiiska abisay axmedoobe gal marka waxa sii soconaya ma in dadka maalin kasta la kala dilo wiil baa laga soo socota maamul qurux badan oo jubbaland ah oo mareexaan madaxweyne ka yahay baa imaanaya insha Allah taala annagoo dhan baan u baahan maamulkaas annagoo dhan baa u baahan oo madaxweynaha ku buush gareeyeen waayo kan intuu dhaafay kansar wuxuu marayaa xanuun buu maraya madda ku dhaca waana al-shabaab wey shabaab caadi haddaad rabto qof shabaab ah oo hadlaya oo soconaya astaamihiisa haddaad rabto inaad eegto axmedoobe fiir marka waa u baahannahay madaxweyne dadkaana isku wadi kara madaxweyne cadaaladdu agtiisa kaaga dhowdahay madaxweyne daxoo xataa dimuqraadiya wax fahmi kara barnaamijkan barnaamijka intaan kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu